dibad baxyo xoogan oo ka socda Kenya askar Israa'iil ah oo lagu laayay Khan Yunis iyo qaar kale oo maqan oo ilaa iyo hadda la laayahay inta aan gelin wararka bariga dhexe Kenya iyadana inta dhibta ayaa haysata oo waxa si isdaba joog ah u dhaca banaanbaxyo looga soo horjeedo dawladda taasi oo ay shacab tiro badan ku dhintaan maanta dalka waxaa ka socda banaanbax xoogan oo lagu xusayo dilka ka dhashay dibad baxyada baarlamaanka sanadkii aan soo dhaafnay dukaamada ganacsiga ayaa albaabada loo laabay waxa isfool taagan shacabka iyo ciidamada wadooyinka galayo aqalka madaxtooyada ayaa la xiray waliba la adkeeyay xiritaankooda fiilooyinka maanka fiiqan ayaa lagu taagay wadooyinka gala aqalka madaxtooyada ka hor mudaharaadyada dhalinyarta Gen Z dibad baxayaasha ayaa ayagana xiray wadooyinka magaalada Nairobi iyadoo Kenya laga xusayo sanad guurida koowaad ee ka soo wareegtay weerarkii dhimashada badnaa ee ka dhacay baarlamaanka booliska ayaa adeegsanaya sunta dadka ilmaysiisa si ay ku kala ceeriyaan dibad baxayaasha gudoomiyaha hore ee maxkamadda sare David Maraga iyo xildhibaanka bariga Embakasi Paul Ongili Babu Owino ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay mudaharaadkaasi guutada Al-Ghazam ayaa soo bandhigtay muuqaallo cusub oo muujinaya beegsiga askarta Israa'iil iyo gaadiidka dagaalka ee ku sugan furiimaha bariga ee Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza fiidiyowgu wuxuu soo bandhigay garaacis toos ah intii lagu jiray iska hor imaadyo xoogan iyadoo dagaalyahanada waxa iska caawinta ay wajahayaan weerarada dhulka ee socda tani waxay ku soo beegantay iyadoo ay sii socdaan iska hor imaadyada ka socda Gaza halkaasoo barakac iyo burburinta ay sii kordhayaan maalinta ka dambaysa ciidamada Al-Ghazam waxay xalay sheegeen in ay xalay dileen 12 askari oo Israa'iiliin ah kuwa kale la leeyahay kuwaas oo laga shaki qabo talow Maxamas ayaa afduubatay bise cabsi ay la carareen